kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya Soomaalidu waxa ay faaruqisay caasimadda Muqdisho oo qof kasta oo Soomaali ahina waxa uu ku laabtay gobolkii horena loo kala firsanayay kala duwanaansho taariikheed ka soo bilaabanaya dhamaadkii qarnigii 18aad sidoo kalena ay jireen xasuuqyo ay jabhadu ka geysatay qaybo kamid ah gobolka ama aan dhihi karo kumaanku nin baa lagu dilay oo xoolaha lagu dhacay oo waxyeelo badan bay geysatay jabhadii halka ka timid shacabka reer SSC iyaguna waxa ay diideen guud ahaanba wax kasta oo ku saabsanaa maamulkaasi aqoon-yahano iyo madax hore dawladda iyo saraakiil ciidan iyo niman baa jiray magaalada Kismaayo ku shiray oo 50 nin ah shirweynihii Boocame waxa uu baray Soomaalida inay iswaafajin karaan haybta iyo maamulka ayaan darrose waxay dhacday markii maamulkii dhammaa ee lagu tabcay ee hantida lagu bixiyay ee intaas soo bilood loofay ee dadka deegaankaas ay marti galiyeen ee la iskugu yimi majaha loo bixiyay marka hadii ninkii gudoomiyaha ahaana uu shirki diiday oo ka baxay gudoomiye ku-xigeenkiina uu gudoomiyihii baarlamaanka noqday Somaliland Cabdullaahi Yuusuf ayaa wuxuu ka reebay shir qaahira ka dhacay shirkaas qaahira ka dhacay ee Cabdullaahi Yuusuf ka reebay ninka gudoomiyaha US Maxamed Xaashi la yiraahdo ayaa waxa dhacday inuu Cabdullaahi qaahira ka soo carooday waxa uu Soomaalidu horeysay Boocane waa wax qoran oo documentary waxa weeyaan oo Petrus Qalib ku amaanay marka aad sabab fadhiyeen 93 oo yiri war nimankan gobolada soo dheesana ka yimid baa yaab loo maamulkoodii iyo dhaqankoodii isu geystay wax gobol oo maalintaas dhisay Puntland horta tii u horeysay la aasay oo madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf ka ahaa maamulka dambeeya ma ay yeelan ciidankii Cadda Muuse ciidankii Xiif Xalitaan ciidankii hadda la ku rooyay hebel kale ciidankii Cali Cabdi Awaare ciidankii Faroole ciidankii Maxamed Xaaji Aadan ciidankii qawaaniintiisa dhawro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto kowdii bishii August sanadkii 1998 ayaa lagu dhawaaqay dhismaha maamulka Puntland waxaana hal mar la wada arkay iyadoo ay dhinac isu raaceen madaxweynihii caasimadii wasiiradii ugu badnaa iyo sidoo kale baarlamaanka tiradii ugu badnayd haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay noqonaysaa sababta ay beelihii kale gaar ahaan beelihii SSC oo iyagu qaybta ugu weyn ka qaatay dhismaha maamulka Puntland ay uga tanaasuleen isla markaasina ay u ogolaadeen sadbursiga intaas leeg arintaad sheegayso waa arin jirta way iyo wali waa waxyaabo kale oo ka sii badan dadkanu daacad buu ahaa laakiin gool darro arintu dhinacii kale ka soo jeesatay waxa weeye in la muhiimada dhismaha u maalasiinay macal dadkii meesha isugu yimid markiyan calanka dhidibnay masadan guuraynu dhaafnay halkii dheef laga filayay miyaan darababa ka weynay halkii dheef laga filayay miyaan darababa ka weynay majuun baan dhega barjownay maluuliyaan dhaxal ka weynay dhibahana hayaa tarweynaa waxaa la isweydiinayaa mar kale maxaa uu ku soo kordhiyay maamulka Puntland deegaanadaasi intii uu joogay maxaase ay ka faa'iideen gobolada SSC dhismihii maamulka Puntland waxay ka faa'iiday markaan hore Ilaahay u hadlo garan maayo muddo wax la qabanayeen ma ahayn markiyan calanka dhidibnay masadan guuraynu dhaafnay halkii dheef laga filayay miyaan darababa ka weynay halkii dheef laga filayay miyaan darababa ka weynay majuun baan dhega barjownay maluuliyaan dhaxal ka weynay dhibahana hayaa tarweynaa odayadii ka dhiribshay haweenkii